السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاج علي نور ديريو والسلام يا دمان أمد الصوماليات أردن ما أنت كليب كان وحن كجاه الله ياه نين آد صاحب قلنا هاي ويجو حقي آد قيمة بدن لكن أن مود يبريها إنه وحافظ إذا كده لين هاي وعيري نكي لورنشري عبد الرحمن عبد الشكور قولوا يقبلني أنا تكون رجينية Soomaalida aad u shaqaynaysid iyo saad ugu shaqaynaysid laakiin waxaad ogaataa Cabdiraxmaanow Soomaalida aad u shaqaynaysid ayaan ka mid nahay haddaan nahay reer Galmudug haddaan nahay waliba caasimadda Dhuusamareeb eeriyadeeda iyo meeshii laga doortay waxa weeye ummadaha beesha caalamka aad tusaysid oo abaaruhu ay hayaan dadka dhibaataysan ayaan ka mid nahay shacabkeenna Galmudug gaar ahaan gobolka Galgaduud gaar ahaan Gurceel iyo meeshii laga doortay ninkii wuxuu nina dhalashu kuugu dhiidiyay nina dhuuniyo kuugu soo dhacay in adeer macaane waxa tagtay safaradaadii waa kuugu hambalyeynayna ummadda Soomaaliyeed oo dhan inaad u shaqeydo oo aad si cadaalad ugu shaqeydo laakiin annaga wax nagu gaar ah ma jiraan annaga dhibta Soomaalida haysata iyo abaarta haysata ayaan la qabnaa inaad wax naga weydiisid meeshii annaga ay gobolkii Galmudug abaaraha ka jira hobyo ka jira Dhuusamareeb ka jira Gurceel ka jira Galinsoor ka jira Cawda ka jira meeshii aan u dhalanay inaad wax naga weydiisid xaq baad u leedahay waliba meeshii adiga laga doortay marka waxaan ku leeyahay inaad anaga wax naga weydiisid oo aad tiraahdid warbal dhibaatooyinka jira dadkii aad oo lugahaaga ku tagtid xaq bay u leeyihiin inaad soo booqatid ood Gurceel tagtid ood Matabaan tagtid ood Dhuusamareeb tagtid ood Hirshabeelle tagtid wax anaga nagu gaar ah ma jiraan annagu xildhibaanka nagiina waa tahay oo hadda dacaayad maaha waxaan leeyahay inaad madaxweynaha la taliyo u tahay oo xagga abaaraha aad uga tahay United Nations aad wakiil uga tahay way caddahay laakiin walaalle gobolkii Galmudug la oran jiray iyo Hirshabeelle kuma jeedno qof annaga markii wax loo dhiibo waxaad moodaa in xaafadda la yiri ka carar oo xaafadaada u go walaalle soo booqo guddo u dir annaga ku sheegayna intaas oo dhibaato ayaa ka jirta xoolihii abaar baa ku habsatay dadka madaxda u tahay ay ka mid yihiin Cabdiraxmaan Cabdi Shakuurow buula bardaa tagtay oo beedkiisa aad ku dhalatay waxaa tagtay hadii Ilaahay ku roon yahay meesha la yiraahdo beled xaawo iyo doolow waxaa tagtay Puntland adeer de laguma dhihin istaambadaadu haday tagto calankaaga dhacaya Galmudug meeshii waa inaad tagtaa waa inaad dadkii la soo xiriirtaa waa inaad guddi u saartaa waa inaad sida annagu nooga roono Soomaalida kale kuma lihi laakiin inaad ayagiina u tagtid Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay Allah yacisag guul iyo gobonnimo dadkan club house isku bahaystay oo dulmiga dawladda Soomaaliya kama jirto waa warayda ku haya loo joojin maayo danta dalka iyo dadka waxa loo doortay mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre iyo Sheekh Aadan Madoobe ayaga meeshii noo jihiyaan aadayna Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame abti Galmudug abaaraheeda hadaa tagto calankaagu dhici maayo way kor u kacaya you must be visit for that people waa dadkaagii xaq bay leeyihiin Puntland iyo kama liitaan iyo Jubbaland gedo kama liitaan walaalle soo booqo waxay xaq u leeyihiin oo aan sadbursi yahayn hay'adaha intelligentiyada wareys annagana wax naga weydii waxa maanta ka jira dabare iyo habar cirir iyo oodaale iyo garijir iyo Cali Xasan annaga maanta ana la socdo oo bid iyo la soo hadlaan wax naga weydii abti macaani aad iyo aad baan inii salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed Galmudug waa ku sugaysaa waana ku dharanaysaa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuurow waana ku sheegaynaa maadaama aan la taliyaashaadii iyo madaxdaadii nahay oo dawladda oo dhan aan gaad ka nahay waan salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh